munaasabad xil wareejin oo xilka kula wareegayo gudoomiye cusub oo loo soo magacaabay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sool ayaa maanta ka dhacday xarunta wasaaradda waxbarashada waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay maayirka degmada Laascaanood gudida waalidiinta gudiyada nabadgelyada ee magaalada Laascaanood maamulayaasha dugsiyada iyo macallimiin kale ugu horeyntiina waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah gudida waalidiinta maamulayaasha dugsiyada iyo waliba maayirka degmada Laascaanood oo ku dheeraaday in wasaaradda waxbarashadu ay tahay isha koowaad ee ka soo baxaan ubadka yaryar ee waxbaranaya loona baahan yahay in kor loo qaado tayada waxbarashada aan kala dardaarmaya gudoomiyaha cusub waxbarashada waa meesha koowaad ee wadnaha magaalada marka la eego waxbarashada haday waxbarashadu hagaagto gobolku dib u ka hagaagay ugu dambeyntiina gudoomiyaha cusub ee wasaaradda waxbarashada gobolka Sool Faarax Axmed Cabdi Faarax Kawte ayaa ka hadlay in markaas uu si cadaalad ah uga shaqeyn doono si siman gudoonka waxbarashada oo maamuli doono inta aan meesha joogo ama hayraata ama badnaatay inta aan meesha joogo aniga waxa laga shaqeeyaa cadaalad waa number 1 waa kalsooni iyo midnimo iyo daacadnimo Cabdiraxmaan Ali Ducaale Home Cable TV Laascaanood